tani waa Hargeysa xudunta doorashooyinka hisuwan ee golo baarlamaan iyo deegaanba leh oo ka dhacaya 31 bishan saacado kadib ayaa looga dareeri doonaa gabi ahaanba dhulka uu ka taliya nidaamka Somaliland u diyaar garow xiiso leh ayaa ka socda halkan ka oo ku wajahan doorashooyinka oo xamaasadoodu ay muujinayso ahmiyadda guud ahaan ay u hayaan bulshada ku nool Somaliland oo waxtar taabasho leh uga fadhida xubnaha la dooran doono xubnaha baarlamaan ee ka soo baxaya gobolada ay xarumaha u yihiin Laascaanood Hargeysa iyo Burca ayaa ugu saameyn badan doorashada tirada guud ee musharaxiintu waxa ay dhan yihiin ilaa iyo 1,000 qof saddexda xisbi ee halkan ka jira ayaa doorashada si weyn ugu loolamaya kuwa oo kala hororsanaya kuraasta soo bixi doonta taas oo jaan goyn doonta cidda aqlabiyadda golayaasha yeelan doonta iyo cidda looga dambeyn doona guusha doorashooyinka madaxtinimo ee xiga rayid ka badan 1 milyan oo qof ayaa codaynta ka qayb galaya waxa arinta si weyn u soo jiitay dalalka caalamka ee maalgeliya dimuqraadiyadda nabadda iyo isxukunka xorta ah halkan waxaa jooga dad badan oo ah ajaanib kala duwan kuwaasoo kormeerayaal ahaan doorashada u kormeeraya wakiilo badan oo ka socda beesha caalamka ayaa ku isugu yimid halkan Somaliland si ay markhaati uga noqdaan doorashada halka ka dhacaysa iyo habsami socodkeeda iska taa dalalka shisheeye xitaa guud ahaan Soomaalida kale ayay tan xiise gaar ah u leedahay maadaama bulshada kale ee Soomaalida badankooda ay u ooman yihiin inay si dimuqraadiya wax ku doortaan tani waxa ay u tahay hoga tusaale iyo halbeeg ay berri ku hiran karaan wax ka baran karaan dhiirigelinna ay ka helayaan in ka badan 1,000 askari ayaa sugaya ammaanka doorashadan hannaanka loo qaban qaabiya howlaha ololaha ayaana ah mid xiiso leh maadaama xisbi walba iyo musharaxiintu soo heleen fursad ay bulshada ugu bandhigaan qorshayaashooda horumarineed taasoo tusaysa sida ay kasbashada codka dadweynuhu u ahayd mid daahfuran sida aan horay u niri tani Somaliland guud ahaan waxay uga dhigan tahay taariikh iyo tallaabo kale oo qaangaar ka dhigaysa geedi socodka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka xorta ah waa tallaabo sawir mugle ka bixinaysa dadaalka nidaamkani sameeyay 30 sano ee tagay oo ay galeen 6 doorasho oo shacabku ka qayb galay kuwa oo madax iyo matala shacab lagu doortay waalbaam nidaamkan u furaysa aaminaadda wadamada dhiirigeliya dimuqraadiyadda tani waa mid ay naawilayso Somaliland muddo dheer kormeerayaasha caalamiga ee halkaasi tagay si ay kor joogteynta doorashada u noqdaan waxa ayna qayb ka warbaahinta caalamka oo yana doonaysa inay door ku yeelato baahinta barnaamijyada la filayo in ay mid xalaal noqotay halkan ka dhacdo ama ka dhigto waxa nidaamka haatan hor yaalla waqti kale oo taariikhda u gali doonto Somaliland ka oo guud ahaan bulshada halkan u muuqatay in hirgelintiisa ay ka wada go'an tahay xisbiyada muxaafid iyo mucaaradba waxa ay hadda u tartamayaan sida ay uga dhamayn lahaayeen in Somaliland ay ka dhacdo doorasho dhammaan dhinacyadu ay isku waafaqsan yihiin isweydiinta taagan waa mid gabi ahaanba dadka Soomaalida oo dhan ay aad indhaha ugu hayaan xaaladda ka jirta Somaliland boqolaal dad ayaa dib ugu laabtay deegaan doorashadooda si ay u doortaan musharaxiinta ay doonayaan